السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني منال دولي ما شاء الله soo noqod wanaagsan maanta waxaan jeclahay inaan bilaabo barnaamijkaas oo ah sheeko qiso ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo hadda wixii ka bilowdan waxaan jeclaa qisooyinkaas inaan idin soo tabiyo waan jeclaa reactionkooda muuqaaladooda inaan xoogaa idinka tuso laakiin copyright iska jiro taas haddaan ku marsiyoodo tan kalena ani editinka aad iyo aad ay u dhimay video jiro aan la dhibaatooday horta hore maasha allah alxamdulilah safarkayga ilaahay si nabad leh ayuu igu soo dhameeyey kadibna waxaan imid turkiga arrimo siyaabo ku saabsan xanuun aniga ahay muddo dheer insha allah gadaal ayaan idinkaga soo sheegi doonaa xanuunkayga iyo dhibaatada aan maray iyo hadda xaalkeeda siduu maraayo iyo sida aan rajeynaya insha allah aan ka gudubno maanta waxaan idin wadaa qisadaasoo ah waa jacayl laakiin waxa weeyaan dulmi jacayl dadka la dulmiyo infact waxaan kasoo tabatay meesha sheekooyin qisooyinka dhaca ee hindiya ka dhaca ayaan kasoo tabtay sheekadan waxaa jirtay gabar la dhaho aarti ayay ku socotaa sheekada qofka dulmiga loo geystay waa aarti deetana aarti waxay saaxiib la ahayd gabar ayay saaxiib ahaayeen mukutii la dhaho soo waxay dhigan jireen college aarti hooyadeed iyo aabeed ayay la nooshahay waa gabar maxaa la yiraahdaa la ilaaliyo mar walba sida badanaa dhaqankeena soomaalida gabdhaha waa la ilaaliyaa badanaa hooyada gabadha way kontarooshaa xagee ka baxday xagee u socotaa intee aadee iskuulka guriga waxa ahayn looma ogolo marka nolosha aarti sidaas ayay ahayd iskool ayay dhigatay way dhamisay kadibna waxay dhigataa markaan college xilligay dhiganayeen ayaa waxaa jira wiil ay isku fasal ahaayeen oo la dhihi jiray magaciisa Picasso adii deetana gabadhii wiilkii ayay ka heshay aarti wiilkii ayay jeclaatay mar walba classkooda maalinkii dambe waxaa dhacday inay ka weydo bas wiilkii dhowr maalin markii classka ka weyday way baxday aarti wiilkii raadisay saaxiibadeeda u sheegtay tiraahday maalmahan maxaa ku dhacay yarkii sheekadeedana way la socotay gabadha way u sheegtay wiilkan inay ka hesho inay jacayl u sheegato ayayna doonaysay dareen maadaama u qabtay dareen wiilkii markay raadisay aarti way heshay waxay tiri iskuulkay dhinac ka heshay soo jooga waxay tiri niyahow maxaa kugu dhacay classka baryahan waa lagaa waayey deetana wuxuu ku yiri wuxuu classka uga baxay casharada ay qaataan physics-ka ayaa aad ugu adag xoogaa damiin ayuu ahaa damiin caqlilo uu ahaa marka wuxuu damcay marka classkaas dhan inuu u jaro marka wuxuu yiri aniga physics-ka idhibaay that's why aan classka u aadin gabadhana maadaama ay ahayd physics-ka cashar ay aad ugu fiican tahay waxay ka codsatay inay tutor garayso ama tuition u dhigto sida casharada gaarka ah ee u dhigto bas sidii marka wuxuu yiri ibar casharadaas gaarka ah waayahay tiri adi aakhir jaceelaa la isku sheegtay maalinkii dambe sidii la isku shukaansanay gurigiisu ku balamay gurigiisu gabadhan uu wacay bas gabadhii saaxiibadeed ay soo raacday hooyadeed waxay ugu sheekaysay hooyo maanta waxaa aadayaa saaxiibadeed muxuu ahaay waa kaasaa ugu casharaan raba inaa kasoo guursado sidaas marka waa ay la soco okay hooyadeed waa hooyo kulkulul waxay ku tiri okay haddaan hal saac go'binimo guriga ka waa istiriya weylag camal waayahay tiri gabadhii way israaceen labadii gabdhood mootay marka wataan labadooda mootadii israaceen gurigii wiilka markay tageen agtiisa ayagoo degatay kale waxay u dhibtay marka buugaag ay tiraahdo soo koobiye si hooyo ma marsihii hooyo aan uga dhigno marka waxaa jirta gabar soo dabagashay gabadhii soo dabagashay kabacdi gabadha gadaale u fiirisaa maxay tahay gabadhan ku daba socoto waxay istirimi hooyaa kuugu soo daba dirtay maadaama hooyadeeda ku tiri
hadda meel walba kula socdaa isheeda way kula socotaa nin dabeera dhaansho warkaaba kaasoo horeeyay hooyo jaajuuskeeda meel walba jooga ay ku tiri hooyo marka waxaa istiri minde hooyo weeyaan qofkan gabadhan kusoo daba dhigto ku fiirinaysa ilaan waxaa la dhahay tuugka haddaa tahay waxa malaysaa dadka dhan inay ku arkayaan ama ku ogyihiin waxaa soo samaysay sidii adi gabadhii iyadoo oo gabadhii kale iyadana mooto uga daba wadato ee gabadhan dirtay meeshay ku sugtay iyadana waxay gashay xaafadii uu deganaa wiilka markay saa u gashay xaafadda waxaa ka hor imid waxaa jiro waardiye haddaadan xaafadda deganayn waraysi kaa qaadayo waxaa jirto meelo la saxiixo guryaha qaar oo kenya ani ku noolaa okay kenya way lahayd xaafadaha qaar stateyadoo kale irida hore qofku soo galo magaciisa meesha ku qoraa marka ninkii waardiyaha waa gabadha wuxuu ku yiri xagee u socotaa waxay ku tiri guriga 405 aan u socdaa bas ayadoo hadalkii u wado watchmankii la hadlayso waardiyihii la hadlayso ayaa isagii soo degtay ninkii soo degtay ninkii markuu soo degtay wuxuu ku yiri gabadhan waa walaashay anina ii socotaa markaasuu waardiyaha wuxuu ku yiri gabar kale walaasha aha haddana mid kale camal kaasi yaabtay waxay istiriyaa waa ninkan muxuu ka rabaa camal haddana mid kale oo walaasha ah markaas wuxuu ku yiri maxaa dhacay walaalahii ma ii xisaabinay adi macnaha xisaab go-an ma walaal lagu noqdaa deetana sidii marka uga soo bixiyey marka wiilku wuxuu samayn jiray sawir gacmeed gabdhaha uu sawiraa then markaas qolkiisii uu geeyey bay waxay tiri waxay aragtay gurigii isku dhexyaacsan guri iskaablo waa taqaanaa wasaq inta iskaalshaha yaalo inta kabta taala inta waxaas yaala then gabadhii waxay samaysay waxay istiri bal maanta gurigan ka hagaaji asagana waxa ku jiro fikir kale maskaxdiisa gabadhan maanta ku timaadee labaashaala ee ka dhameyso waxaa rabtay dantaada ka gaar then wuu soo dhawaaday wuxuu ku yiraahday ka waran maanta saaxiibkii gurigii la deganaana ma joogo maxaa la dhahay labadeenaana keligeen maxaa kula tahay inaan howsha qabana mise kaasi waxay ku tiri haa inaan howsha qabano waa ayada marka howsha waxay ka wadaa howsha guriga laakiin isaga wuxuu ka wadaa howl kale macnaha maadaama hadda aan jaanis ku haysano oo labadeena nahay see u aragtaa बेबी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज मेरा रूममेट भी घर पे नहीं है और तुम और मैं यहाँ अकेले तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को इस मोमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए एक्चुअली यू आर राइट यू नो हम लोग साथ में टाइम तो स्पेंड कर नहीं पाते हैं तो क्यों ना आज कुछ साथ में करते हैं चलो झाड़ू निकालो फिर झाड़ू क्यों क्योंकि मैं सफाई करने की बात कर रही थी सॉरी 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 कहाँ रह गई थी तू जल्दी बैठ 15 मिनट में घर पहुंचाना है तूने वो लड़की देखी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिन से वो मुझे फॉलो कर रही है okay gurigiisii markii kasoo baxday saaxiibadeed ayaa banaanka ku sugaysay way kusoo dahday iga raali noqotay markay soo baxdeen waxay aragtay macnaha ogaatay inay weli gabadhii daba socoto soo marka way yaaban yihiin gabadhan maanta dhan way daba socotay waxa u maleynaa waa ogahay meesha igaga socoto soo marka waxay leedahay hooya igu soo dirtay marka gabadhaas hooyadeeda ku soo dirtay mise meel kale ay ka socotaa waan ogaan doonaa sheekada ayay noo sii wada bal
उसे नोटिस कर रही हूँ कि वो हर जगह होती है। आज ट्यूशन के बाहर भी देखा और आज यहाँ पे भी है वो। अगर बहाने बनाकर इधर उधर घूमने का इरादा है ना तो याद रखना मम्मी के जासूस हर तरफ है। ओह फ्रीक, मैं जानती हूँ ये कौन है। ये मेरी मम्मी की जासूस होगी। ये तो यहीं आ रही है। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी मम्मी ने भेजा है ना मुझ पे नजर रखने के लिए। प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं किसी लड़के के करती। waxay tiri waa ku ogahay hooyaday ayaa ku soo dirtay laakiin waa ku baryahay ceebeen ha ku oran hooyo guri nin ee kasoo baxday ayadoo nin gurigiis galaysa oo kasoo baxaysa arkay ha isheegin saasay ka codsatay नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम ने नहीं भेजा। okay waxay tiri maya aniga hooyada ima soo dirin macnaha ayada gabadhan hooyada kaba socoto okay halkay ka socotaa gabadhan maxayse gabdhahan u daba socotay ilaa maanta dhan intay soo socdeen dhan way ku daba jirtay soo aan ogaano sababta ku kalifta gabadhan inay gabdhahan daba socoto तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मैं पिकासो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, सुप्रीत। waxay ku tiri ninkan saaxiibadiisii horaan ahay way yaabtay gabadhii way u qaadan la-dahay ninkaa gurigiis ka soo baxday saaxiibadiisii horaan ahay एक्चुअली मैं और पिकासो केमिस्ट्री की कोचिंग क्लासेस में मिले थे। उसके बाद फॉर अबाउट 3 months वी वर इन अ रिलेशनशिप। 3 महीने तक सब ठीक था, इट वाज अ नाइस टाइम। फिर अचानक उसने कोचिंग क्लासेस आना छोड़ दिया। उस दिन से उसका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड हो गया। रात रात को फ़ोन बिजी आता था, घर टाइम पे नहीं पहुंचता था। आई जस्ट न्यू दैट ही वाज चीटिंग ऑन मी। gabadhan waxay tiri wiilkan Picasso waxaan ku kulanay coaching classes meesha oo wax lagu barto chemistry so waxay tiri 3 bilood ayaan saaxiib ahayn 3 bilood intay 3 bilood xiriirkeena uu socday wuu fiicnaa xiriirkeena nin fiican uu ahaa balse 3 bilood kadib waxaan arkay ninkii isbedelay classkiina uu ka tagay coaching classeskaas la qaadanayna uu ka tagay taleefankiisana habeenkii markaa waco mar walba qof ula hadlaaya mashquul waay busy waay soo markaasaan ogaaday tiri inuu ninkan daacad yahay inuu naaga kale igu dul wadwado मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। waxay tiri marka intaas waxaan rabay tiri inaan ku qabto asoo falkaas ku jiro ama naag igu dul shukaansanayo inaan ku dul qabto laakiin intaysa dhicinba taas xiriirka ayuu ii jiray वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने ऐसा ही किया है और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। qoftan maba aaminsanaba way dhalaaloosaa waxay tiri qofkaas waxaas maba ka suuroobaanba lagamana yaaba inuu wax sameeyo markaas tiri waa laga yaabaa wuuna kugu sameyna adiga laftirkaaga ehee नहीं, he loves me. How do you know he loves me? wuu i jecel yahay taagan tahay sidee ku ogaataa la dhahay inuu ku jecel yahay I just know. आ गई ना तुम भी उसके चक्कर में। Not your fault. वैसे किया क्या था उसने तुम्हारे लिए? कार्टून ड्रॉ किए थे या फिर किसी नोटबुक पे ड्राइंग बना के तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था? sheekooyin hore way ugu soo samayn jiray tanaa loo sameynaya see ku ogaataa le inuu ku jecel yahay gurigiisa ku geeyay kafee kuu shubay muxuu ku tusay sawiro oo adiga uu ku sawiray waxaas ma ku aaminta camal waa yaabta qoftaan wixii loo soo sameeyay waa inuu Don't look shocked. hayaabin hala सबके dhahay साथ ऐसा ही करता है। Tell me something कि तुम्हें कभी रात को उसका फोन बिजी नहीं मिला? मेरे पास मोबाइल नहीं है। oo midda kale waxaad ka ilaab gabadhan xitaa telefoon ma lahan hooyada telefoon way ka ilaalisaa marka xitaa hadaa maadan fiirin miya xataa maadan ogaan inuu xataa habeenkii naaga la hadlo inuu telefoonkiisa busy ku yahay si xitiri telefoon buu ma qabo aniga
इसे 80% आएंगे एग्जाम में तो मोबाइल मिलेगा. أنا صاحبتي دحتري هدي سيدتن كنتو امتحانka markaas telefoon loo gadi karaa halkaas ugu xiran yahay wadeed waxa ku diray ilaa sideetan bundo markaa keento ka bacdi laga yaabaa in lagu gado maxaa la dhahaa telefoon insha Allah ay तो तुम हफ्ते में कितनी बार मिलती हो उससे? कोचिंग क्लासेस में मिलते थे बट उसे कोचिंग क्लासेस छोड़ दिए राइट? Amazing. I don't believe this. You're the perfect catch for him. waxay tiri okay wiigi meeqa jeer kulantiin waxay tiri anaga waxaan kulmi jirnay 2 mar wiigi laakiin waxaan ku kulmi jirnay coaching classes meesha wax lagu barto iskoolka college-ka marka waxay tiri okay college-kiina uu ka tagay soo maaha sidii iyada camal tan ugu soo sameeyay waa tan laba bari istusay college-ku meesha la dhigtay coaching-ka dan haddana uga baxay sida istraado wiilkii wiilkii tan sheekada ku soo dhacday lutan ku sameeyay korna idka bisma dheer hora loo yiraahday देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता बट हो सकता है कि तुम मुझे पसंद ही ना हो. gabadhan way aamini laado waxay taagan tahay aniga adiga kuma aqaano ninkaasna anigu iga helay ana waa jeclahay marka adiga laga yaabo in adiga asaga jecesha uusan isaga ku rabin adiga मुझे पता है कि पिकासो loves me. macnaha uu jecel yahay adaa isku kaadiraayo adaa isku rabo marka filimkaaga waa ku fahmay camal leedahay kale nin meel u caday meel ka mid hora loo yiri मुझे फॉलो करना बंद कर दो. छोड़ दूंगी लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है ना तो रात को एक बार उसे फोन कर लेना और अगर मुझसे waxay tiri iga daba har aniga afaarahaaga kuma jiro iga daba har amaanisi marka waxay tiri amaan waa ku siinaa laakiin waxaan rabaa marka hore runta inaa ogaatay bal caawa isku day ninkaas waa teleefankiisa fiiri inuu mashquul yahay in kale बात करनी होगी तो बगल वाले गर्ल्स हॉस्टल आ जाना. marka waxay tiri haddii aragtid caawa asoo teleefankiisa mashquul yahay waxaan deganay tiraade meeshan agteeda hostel gabdhaha meel iskuulada waxaa jiraan hostel waa meel ardayda ay degaan kaliya ardayda khaas u degaan hostelkaasaan deganahay igu imo way ku tiri मुझे कहीं ना कहीं पिकासो पे शक सा होने लगा कि वो लड़की सुप्रीत ने भी बोला था वो वॉचमैन का भी जैसे उसने बोला था कि ये मेरी बहन है और बाद में मैं घर गई तो मुझे उसको कॉल करना था एंड यू नो व्हाट कि इमोशनल अत्याचार में मैंने बहुत देखा है कि लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं. okay marka waxay tiraahday ayadii hadda ka hadlayso aniga hota shaka wuu igale tiraahday ninkan wajamaanka markuu yiri waa walaashay uu ku dhahay gabadhan ay hadalka sheegayso xogaa waa yaabay tiri xogaa shaki iyo xogaa lablab ay igale dhahday laakiin waxaan rabay inaan ogaado qofkan xaqiiqdiisa waa maxay marka insha Allah wiilkaas xaqiiqdiisa ay ogaan doonto gabdhahan sidee uga aarsan doonaan si qurux badan ay uga aarsan doonaan insha Allah part 2 ayaan ku soo qaadan doonaa maadaama ay timekii iga dhamaatay 20 daqiiqo saas iga baxday insha Allah part 2 ayaa noo ballan ah mar kale ayaan ka soo sameyn doonaa billahi tawfiiq tata